السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاليا أنا عافمد وتهرجين أنا ونوادي عافمد والحمد لله رب العالمين. هذا سيقول كلنا كورسين سي فري أكو سوق كنت بتشني يوتيوب كان كلنا رشيد أكاديمي ما أنت وها مسكين صار سيد الله سمي كفر بوك ديزين كأنه رياله ديزين كأنه رياله أنا كل ديزين قريني أدوب إلستريتر بوك الأوجدان halkan aan ka turjumayo lacagta Bitcoin ama cryptocurrency gaar ahaan Bitcoin aan u bixiyay magaca ahaa The Future of Money waa lacagta mustaqbalka insha Allah tacaala waana sida la saadaalinayo lacagtan waana book aan jeclahay sababtoo ah suuqa cryptocurrency aniga waan ku jira in muddo ah 2 sano hadeertan 2 sano ugu dambeeyay waan ku jira insha Allah tacaala loo kala atilina marka wax rabo bookan yugiisa aan ka soo qoro ana book aan ku haminay wax badan inaan cryptocurrency aan book ka qoro aan suuqa digitalka sida forex iyo cryptocurrency labadaba waa ku jira in muddo 4 sano hadeertan u sii dhow insha Allah tacaala sida caadana anoo ka soo bilowno from scratch ilaa iyo dhamaadka fail batiisa new ama control and print A4 but jigsiinsa unit kaasina waa millimeter toos cabirka marka u qaatay 2.10 times 2.97 halkan book offer halkan CMYK waa ka dhigan ka dhaa muhiimadda halkan waa inay ku ahaato 300 wax ka soo qaadana halkan dhammaan idinkuna resource-ga waxaan kala degsaan dhanka Telegram-ka baa u raadsanaysan linkiga description-ka waa idin soo dhigayaa dhammaan resource-ga waa soo geliya cashar walba resource-giisa waxaa soo geliya dhanka Telegram-ka xagga marka wax noogu horeeya waa sawir baa halkan noogu jiray oo ka turjumaya lacagta cryptocurrency gaar ahaan Bitcoin sawirka aad u weyn yahay control minus iska fogeynaya yara marka shift alt qabo soo weynayso marka artboard-kaaga leeyahay marka inaad isku dayso kan log iska xir control 2 rectangle tool baa soo qaadana inaad ku sawirana waa meesha aan magaca aan ku fariisanayn buuga color-ka aan sidii wax ka dhigana color-kaas si aan looga garan hadda marka waa kaas xoogaa wax yar aan baa different ku jira hadhowt markii la daabaco toos buu qaadanaya isagana marka waxa yahay log control 2 magacii baa wax ku fiisan halkan siska 72 future color-ka iga bedel marka wax isiisa color-kan jala ah fartana iga bedel Bobanis far la dhaho Polia centerkina igu aad xawaad yare hadda marka centerka igu aad alam center kana marka wax ka qaadana copy the future of money markina harna kan xoogaa yarano shift qabo inaski center
marka hada magacii toos baan u dhameynay. Waxaa noo haray qoraaga buugga in halkan aan ku xusno iyo daabacaadiisa. Waxaan soo qaadanaa text tool jig baan ku siinaa halkan waxaan ku qornaa tarjumaan oo kale tarjumaan kalarka aan siino waxa waaye kalarkaas casaanka ah. Shift qabo center isku gee hoos oo soo dhigo ka soconaya keyboard laaraha kana waxaan rabnaa copy aan ka qaadano alt drag qoraaga magaciisa oo kale Maxamed Salaan yaree marka shift adoo lahaya center gee center. Okay, marka hadda waxaa noo haray daabacaadii iyo xoogaa yaroo rectangle tool halkan soo dhaweyso control plus xoogaa labadan hoos u soo dhig keyboard laaraha ka soconaya xagga marka rectangle tool horta ugu horeyn centerka noo gee oo ku aadan yahay rectangle tool kale soo qaansa labada gees baa ugu xiraysaa kan ana wax raba marka copy aan ka qaato alt falaarta marka laba xabo saas oo noqoto jiidisa koonaha kale ku xir waxaan rabnaa marka isla helid kare waxaa soo qaadanaysaa shay builder baa soo qaadanaysaa saas geeska u raacinaysaa kana sidoo kale iyo helid kare shay builder soo qaado adoo alta la qaban saas keliya waxaan rabnaa labada gees isku furno geesaha markaad darti isoo dhan iyo helid kare direction left tool baa soo qaadanay gees koonahaas shift la qabo iyo koonahaas saa u jiid markaas kana sidoo kale labada koone jiid isku furnay saas baan ka dhig halkan marka waxaan soo gelinaa daabacada buugga wuxuu ku soo baxay daabacada koowaad farta 36 daabacadii koowaad kale yaree shift la qabo center isku gee kor xoogaa inahaas ugu filan tarjumaan oo kale capital okay kofarka koowaad saas baa ku dhisan waxaan rabnaa marka si aan ka labaad aan u sameyno waxa aadanaa artboardka waxa dhahaysaa plus waakaas marka art labaad waxaan rabnaa noo sameeyey artboard labaad noo sameeyey kan labaad marka waa iska fudud yahay
kuwana wax kasoo furanaa looga si aan copy uga qaadano. Copy iga soo furo labadaba. Copy marka laba xabo saa noqoto ku fiirsan. Okay. Kan sawirkan meesha iga saar. Kan kaliya ka rabnaa. Markaan magacana waa kasoo qaadana. Copy alt drag markii laba xabo saas kugu noqoto. Inahaas marka nagu filan. Waxaa soo qaadanaysa marka rectangle tool yar ku sawiranaysa inahaas xawaa yar wax soo gelinaysa round ah center marka center. Okay. Qoranaha marka hadda halkan meesha ugu banaanay waa waxa loo adeegsadaa qoraaga faahfaahin ku saabsan ama buugga faahfaahin ku saabsan. Text tool qaab waxa uu sawirna shape ahaan anaga inahaas keenana paragraph justify halkan ku taab baa laga yaabaa inaad justify geystid waaye. Okay. Center to center. Okay, marka inahaas marka nagu filan. Xogaa hoos u soo dhig. Okay, marka inahaas marka nagu filan. Log iskaga xir. Hagan rectangle tool baa noola. Colorka aan siirana waa colorkaas. Koonahaas hoose labada koona hoose baa shift adoo lahaya xogaa saas naxan xogaa yar ku soo gaarna round ah. Halkan filka iga xir stroke xogaa marka kordhi laba oo kale waa okay. Object expand waxaan inta kore marka iska jarno. Rectangle tool yar noo soo qaad inahaas noogu sawir. Isla highlight kare shape builder soo qaado. Shape builder soo qaado altado lahaya waxaas inta kore saarsan inti kore hadda marka dhex geeyo waxaas. Halkan waxaa geenaa qoraalkan intana soo koobiyeysana alta falaat marka laba xabo saas u noqoto yaree marka shift adoo lahaya yaree align center to center. Kan hoos horta log iga xir maadaama aan laga korkiisa aan ku dhisan karanayo. Okay, marka iyo daabacad koowaadna isoo highlight kare alta marka laba jeer saa falaat u noqoto. Kan marka ma muuqdo soo maaha madow baa ku furmay background aan aysan wax u noqdo.
asaa codka bagasho waxaa duuyaa kana marka soo gudbiyseen daabacada alta falaarta marka laba xabo saas u noqoto way jiidaysaa hadda backgroundka adeegsanayna wax noo noqdo madow isna madow kalarka ka dhigana white bas cod hadda marka waxaa noo haray waa daabacadii koowaad kale inaa koobiyeyna koobi baan ku sameynaa halkaas kalarka ka bedelna si aad noola aragtaan white design-ka halka marka toos baad u dhamaan halka marka waxaa noo alo QR code yar oo buug ah kana kasoo koobiyeysanaa kanooga soo qaado halkana waxaa ku dhahnaa marka past buugaagta waa aragtay QR code leeyahay marka labadii page ba saas baa ku dhisan karnay hadda marka waxaa noo haray waa page meesha yartahay waraaqaha ay ku fadhiistaan oo dhexe marka waxaa tegaynaa saas baa u jiidaysaa marka xawaab baa iska durkayna intaas dhexdaas baa marka waxaa soo qaadanaa kana waa inaa waxranaa marka koobi aan ka qaadano alta marka saas loogu noqoto alta la qabo inaa isgeey marka soo yaree marka kan hoose oo backgroundka ah iga dhilid marka kana sidoo kale inahaasaa marka ka rabnaa weli yaree marka inahaas marka lagu filan marka waxaa sameynaa background yar u sameynaa alexina kalarka aan siinayna waa kalarkaas ahaada okay log iska yahay marka cancel 2 kan noo soo koobiyey kana inaa waxaa rabnaa koobi aan ka qaadno inta kore future ah group horta future koobi marka arrange kor bayna waxaa rabnaa soo marino print to front rotate baa ku sameynaa yaree marka shift la qabo dhamaystir marka inta ka maqano of money okay marka inahaas marka tangle tool yara soo qaadan inahaas baa ku sawiraysa okay marka kuwana ayagana wax ka qaadana koobi log xir kan hoose iga reeb log ku xir control 2 saddexdaas baa inaa rabnaa qaato alta hoos bay mareen red click
arrange print front rotate marka goosanayo waxaa nala socda code isla highlight gare shift yareen dhexdaas iskugu gee kan xoogaa soo durki kan xoogaa soo weyni center okay kan xoogaa marka hadda waxaa noo hartay inaan save gareyno file export as png marna waxaa ka dhignaa jpeg halkan waxaa ku sameynaysaa folder new folder book cover okay cm camera rgb mode 300 okay aan aragna marka soo baxayo book cover marka saddexdaas hadda marka waxaa noo haray inaan mock-up aan gelino mock-up sida loo gelino insha Allah isla arkana